السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو ضاعت 25 channel. هدي أطاي صاحب نقو عصوب هذا نقو صوبير أو سبسكرايب صار جنالك وما حي صاحب تنمو إلا إيو انتي قطب أيانا لو قيحي كراه كسودو مخالك. midda koowaad saaxiibtinimadu waa hadiyad qiimo badan oo aad u qaali ah haddana aan la soo iibsan karin sidaas ay tahayna in la helo saaxiib uma waa ay ka qaalisan tahay dahabka ama wax waliba oo qaali ah. midda labaad saaxiibtinimadu waa waxa ugu adag ee la sharxo dunidan mana ahan wax aad ka baran karto dugsi iyo wixii la mid ah sidaas ay tahay haddana haddii aadan baran macnaha iyo qiimaha saaxiibtinimada waxba ma aadan baranin iyogow waqtiyadu ay saaxiibadu wadaagaan waa sida qaansaroobad aad u gaaban balse aad u qurux badan haddana waa waqtiyo ku dhamaada farxad niyad sami iyo kalsooni aad u fara badan. saaxiibtinimadu waa in la isku taxgeliyaa kaliya noqoshada ama ahaanshaha saaxiibtinimadooda qofna uma ballan qaadi karo inuu weligii dhinac joogi doono saaxiibkii maxaa yeelay weligiis ma noolaanayo sidaas ay tahay wuxuu u ballan qaadayaa inuu saaxiibkiisa rumaad noqdo inta uu ifka saaran yahay ama uu ifka ku nool yahay. saaxiibtinimadu waa iska warhayn, saaxiibtinimadu waa is-aaminaad, saaxiibtinimadu waa isku kalsoonaan, saaxiibtinimadu waa wada socodka laba qof iyo wixii ka badan si daacadnimo ay ku dheehan tahay. saaxiibtinimadu waa iscafin mana ahan in la is-iloobo. saaxiibtinimadu ma aha waxaad aragto laakiin waa wax aad dareento. saaxiibtinimadu ma aha in la isdhagaysto keliya ee waa in la isfahmaa. haddaba adiga daawanaya muuqaalkan ma leedahay saaxiib rumaad? maxay kaaga dhigan tahay saaxiibtinimada? sidee bay kuula dhadhamaysaa saaxiibtinimada? intee in la eg ayuu kugu fadhiyaa qofka saaxiibkaaga? maxayse tahay waxyaabaha kaga qaalisan agtaada ee aad u huri karto qofka saaxiibkaaga? maalin waliba waxaan leenahay waqti qurxoon, qiimo badan iyo dareen farxadeed inta aan leenahay saaxiib rumaad. insha allah muuqaaladeena xigaa waxay noqon doonaan ama ay ku saabsanaan doonaan saaxiibtinimada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.